kusoo dhawaada taxanaha taariikhda islaamka qaybteena afaraad. waxaa hukumi jiray Iraq dawladda Furus laga soo bilaabo markii uu dawlad ka dhigay reer Furus ninka loo yaqaano Qayrushka weyn waqtigaas oo ku aadan sanadka 557 ka hor dhalashadii Ciise mana jirin cid awooda inay la dagaalanto Furus ilaa uu ku soo duulay ninka loo yaqaan Alexander al-Maqduni oo markaas burburiyay Furus ayna u qaybsameen boqorro xun waqtigaas ayaa qabiilooyin Arbeed degeen Iraq iyo jasiiradda Furaat wayna sii joogeen ilaa mar kale reer Furus awoodoodii soo laabatay oo yimi Kisra al-Dashiri oo aasasay dawladda loo yaqaano dawladda Saasaniya markaas ay ka dhigteen Iraq boqortooyo yar oo Arbeed oo iyaga hoos timaada oo Arabta reer miyiga u edbiso awood kalena aan lahayn sidoo kale inuu ka urursado ciidan uu ka horgeeyo Roomaaniyiinta oo loolan weyn ka dhaxeeyay weligood mararka qaarkoodna Kisra ayaa Iraq u soo diri jiray nin reer Furus ah oo u maamulo markii Arabka uu fahmi waayo sidaas ay Iraq ku jirtay ilaa uu Islaamku qabsaday oo reer Furus uu ka saaray ciidan uu hogaaminayo Khalid ibn Walid Sham waa dhulka ay ku yaalaan wadamada maanta loo yaqaan Suuriya, Lubnaan, Urdun iyo Falastiin haddaba waqtiga Arabtu ay Yemen ka qaxeen dadkii kadib sidaan soo sheegnay ayaa dhulkan waxa soo galay qabiilooyin Arbeed oo ka tirsan qabiilada Qudaa isla markaana ay degeen dhulkan Sham kadibna Roomaaniyiintii ayaa isku daway oo waxay u dhiseen boqortooyo ay ku hukumaan Arabta reer miyiga ah sidoo kale ay ka horgeeyaan dawladda reer Furus markay ciidan u baxdaan waxa hadda dhulkan Roomaanka u hogaamin jiray qoys Arbeed oo loo yaqaano Dajaa'ima ilaa ay ka yimaadeen niman loo yaqaano Al-Qasaan oo ay dumiyeen boqortooyadii Dajaa'imada waqtigooda waxa loo qiyaasay bilowgii qarnigii labaad ee Ciise dabadii ilaa dhamaadkiisii kadibna qasaasinada ayaa hukumayay ilaa Islaamku ka galay dhulkan oo muslimiintu dumiyeen dawladdan boqoradooda kii ugu dambeeyayna uu Islaamku u hoggaansamay khilaafadii Umar sidaan soo sheegnay Maka waxa hukumayay Ismaaciil iyo wiilashiisa ilaa ay kala wareegeen qabiilka Jurham oo Maka hukumayeen muddo dhan 22 qarni kadibna ay kala wareegeen qabiilka kale ee Khuzaa ayagana ay hukumayeen 3 qarni ilaa uu soo baxay ninka loo yaqaano Khuzaa ibn Kilab oo ah awowga shanaad ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu ku qabsaday Khuzaa hukunka Maka ilaa uu ka qabsaday kadibna markuu Khuzaa dagaal la galay haddaba markuu Khuzaa la wareegay hoggaanka Maka oo ahayd sanadkii 440 Ciise dabadii ayuu maamulka Maka si buuxda u galay gacanta Quraysh gaar ahaan Khuzaayi wuuna bedelay dhammaan wixii hore loo yaqaanay waxaan ka ahayn wixii diin u arko aan la bedeli karin kadibna wuxuu dhisay guriga loo yaqaano Daarun Nadwa oo ka dhigay sida baarlamaanka oo kale talada arrimaha waaweyn lagu gooyo Khuzaayi wuxuu hogaamin jiray Daarun Nadwa sidii madaxweyne sidoo kale wuxuu xiri jiray calanka dagaalka oo calan lama taagi jirin la'aantiis sidoo kale waxa gaar u ahaa furaha Kacbada oo uusan albaabkeeda furi karin nin aan isaga ahayn isaga ayaana ka shaqayn jiray Kacbada iyo arrimaha sanabada in dadka hujayda ah loo dhigi jiray qabaalo waaweyn oo biyo Zamzam lagu qasay tamri iyo zabiib loogu buuxin jiray arintan oo ay warkeen sharaf weyn waxa iska lahaa Khuzaayi sidoo kale waxa gaar u ahaa martigelinta hujayda oo iyadana sharaf weyn u ahayd waxa soo dhan Khuzaayi ayaa gacanta ku hayay taladii iyo heerarkii u dajeyna intuu noolaa iyo markuu dhintayba waxa loo ilaalin jiray sidii diin oo kale haddaba Maka iyo qabiilka Quraysheed inkastoo aysan ahayn dawlad weyn ama ciidan iyo dhaqaale weyn leh haddaba waxay noqotay saldhig diineed oo Arabta dhan ay ku fiiriyaan ilaa ay ku heebeysanaysaa wax kasta oo Maka lagu soo gooyo waxay u arkeen wax aan khilaafi karin sidoo kale Maka waxay ahayd meesha Arabtu ay hajku u yimaadaan sidaan soo marnay sida darteed waxay noqotay magaalo ganacsi oo macno weyn uga fadhida Arabta inteeda kale waxay kala hukumi jireen khilaafaadka Arabta dhex yimaada arintaas oo Maka u muujinaysa sidii maamul dawladeed oo kale mana jirin shisheeye kor ka maamula sida maamulada Arabta oo kale taasoo reer Maka ka dhigtay dad hor ah oo madax bannaan oo qadarin weyn ku leh Arabta dhaxdooda sidaas ayaana Qurayshtu gacanta ugu hayeen ilaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo diray sida inoo imaan doonto insha Allah